saxayaasha anoo idinkaydin matalaya ayaan ka mid ahaa heshiiska doorashada iyo habraacyada saddexda ah ee lagu dhisayo guddiga doorashada heer federaal guddiga doorashada heer dawlad goboleed iyo guddida khilaafaadka ee heer federaal saddexdaba saxeexaygu waa ku yaala magacaygu waa ku yaala taa macnaheedu waxay tahay magaciinni baa ku yaal idinkaan idinku matalaya waa habraacaynu ku kalsoonnahay waxaydun tusteen ilbaxnimo iyo xadaarad maanta inaad halkaa u fadhidaan idinkoo 1,000 qof ah xildhibaanadii labada gole ee kuraasta ku fadhiyey iyo walaalahoodii lahaa waa idinla tartamaynaa oo tidhaahdaan mikrofoonkana aynu ka wada hadalno mar dhowna cadku cuniyo cunbuu ku wanaagsan yahay ama waa caano jiilaal cambacan dareeriye aynu tartanno walaalaheen ciddii ay u codeeyaan xildhibaan qaran ha noqdo soo maaha walaalayaalow koonfuray abiil baannu idiin diraynaa cabashaannu idiin diraynaa baaq baannu idiin diraynaa waxaannu leenahay reer waqooyi haddaannu nahay oo xadhiggii midnimada soomaaliyeed ah oo soomaali midowgeeda qayb weyn ka ahaa oo halgankii gobonnimodoonka soomaaliyeed ee 60kii iyo ka hor door shariif ah oo muwaadinnimo oo soomaalinimo aan ka soo qaadannay xorriyaddii 60kii calankii keennay heesihii hirgalay ee dawladnimada lagu dhisaayey keennay qaranka soomaaliyeed qayb weyn ka ahayn burburkii kadib qayb muhiima ka ahayn cartayag leelkeedii qayb muhiima ka ahayn waa ugu mahad celinaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo walaalaheen reer Jabuuti doorkii ay ka qaateen Soomaaliya dib inay cagaheeda isugu taagto taa qayb baanu ka ahayn dib u dhiskii intaas oo dhan xadhiggii midnimadaanu u taagnayn una taagannahay walaalayaalow ijiid aan ku jiida waa gacmo daalise iska daayo doorashaanu diyaar u nahay kaalaya walaalihiin baan nahay mar dhow qofka Soomaaliyeed markuu musharaxa qiimeeyay ee uu yiraahdo warkeeba u khudbad wanaagsan iyo annagu madaxweyne farmaajo aan jecelnayn noo soo noqdee keeba dalka hore u wadi karay xodxodashadu waa halkeeda oo waa xodxodan kartaan oo waa la hadli kartaan laakiin haddii afxuma ka tagto iska fogeysi waxaynu diyaar u nahay doorasho waxaynu diyaar u nahay in doorasho loo dareero oo aynu istooranno laguna kala nabad galo waayo 4 sanadeed markay dhamaadaan waa in tartan la galaa doorasho la galaa murankaasi doorashadii buu dib u dhigaya taa macnaheedu ma waxay tahay doorasho diyaar uma yihiin dib hal la igu dhigo maya waqtigeedaynu ku dhacaysaa doorashada waqtigeedaynu ku qabanaynaa waa ka shaqaynaynaa hadday tabasha jirto oo aad leedahay qof iyo 2 iyo 3 baan dareen ka qabaa diyaar baa loo yahay in lagu dhageysto oo la yiraahdo qof iyo 2 iyo 3 bal hal la eego hadda meel fiican bay maraysaa guddida shalay waa istooratay gudoomiye iyo ku xigeen bay doorteen waxaa loo dhaqaaqayaa jadwalkii inay diyaariyaan in tartan iyo doorasho loo diyaar garoobo loo dareero yaan la idin jahawareerin ku mashquula doorashadii iyo sidaad u xodxodan lahayd codbixiyayaashii iyo kursi walba anuu beele kursigiisa kuma haysto kula tartami maayo cismaan xagaana kuma haysto xagaa ilmaadeeradii baa la tartamaya beelena ilmaadeeradii baa la tartamaya soo maaha waa inaga gudaheennii kii soo baxaaba